suntan tahay wax min wada jir iyo wax qabad marka horumarintu ama horumarku gobolku waa muhiim inaynu siino muhiimad weyn dhammaan sidii gobolku ugu horumari lahaa waxa kaloo aynu dadka u ballan qaadnay dowlad wanaag marka dowlad wanaagii inuu inaga muuqda haddii ilaahay ka dhigo waxaa muhiima oo qarankana muhiim u ah inaynu horu soconnana muhiima waa ammaanka nabadgelyada oo shaqada koowaad dee baro saabku ay tahay marka ammaanka gobolkuna iyo qaybaha kale muhiimka idinkala shaqeynaya ammaankaba iyo iskaashigiisuna waa muhiim waxaa kaloo muhiima inaad hubisaan dadka waxaynu soo ballan qaadnay adeegyada inta badan waxaa ka mas-uula wasaaradda dabagalka wasaaradana idinka cale wasaaraddii wakiilkii ka joogay ama isuduwihii sidii loogu adeegayaa sidii sax ahayd dadka wasaaraddu doonaba ha joogo marka taana waxaa ku leedahay kormeer iyo dabagal in adeegyadii dowladdu ay si wanaagsan u socdaan horumarinta dhaqaaluhu muhiim buu inoo yahay dhaqaaluhu inta waxaynu ku shaqeynayno budgetku waa muhiim inaynu hubino wasaaraddii maaliyadda in laga caawiyo sidii ay cashuuraha usoo ururin lahayd gacanna laga siiyo si aynu markaa u helo dee xitaa mushaharooyinkeennii iyo adeegyadii kale ummadda aynu qabanaynay maanta dunidu waxay isku raacsantahay deegaanku ama isbedelka cimiladu inay tahay waxa ugu muhiimsan oo wax kasta waa lagu qiimeynaya imaka environment friendly haddaad istiraahad darlis dunida waa la isku qabsanayaa environmentka maxay dhib u keenaysaa baa la odhanayaa dhulkeenna wuu abaaroobay berigan yaryaraydna miyigaan u bixi jirro dhulkii aanu kayma wada ahaa maanta waa wada ban ama xaabaa laga shitay marka deegaankana inaynu wada ilaalino muhiim bay inoo tahay kelimada dardaaran umaan idin odhanayaa ay ugu muhiimsan tahay bulshada haddee gobolka ama mas-uul ka tihiin inaad dhegaysataan tabashadooda kala shaqaystaan xalinta dhibaatooyinka inaad ka dadaashaan inay isku xidhnaato dowladda iyo shacbiga gobolka aad mas-uul ka tihiin in shacbigu uu helay adeegyadii dee dowladda ay ka filayeen iyo in degenaansho iyo nabad uu gobolku had iyo jeer uu ku sugnaado inaan inta dhibtu dhacayso la sugin laakiin inta badan ka hortag ayaa muhiima caqabadaha iyo dhibaatooyinka yaryar ee keeni kara in dhib weyni dhacana la xalilo oo si idinkoo la kaashanaya dee deegaanka haddii la yidhaahdo la shaqeynta dadka gobolka hadday yihiin odayaasha ganacsatada ururada bulshada iyo dhammaan hay-adaha dowladda si ay idinku fududaato fulinta waajibaadka laydinka filayo muwaadiniintu waxay naga filayaan inaynu si siman ugu garsooro ama ula dhaqano oo aana sidii dhici jirtay aynaan u kala soocin mucaarid iyo muxaafid ama xisbiga dowladdu taageersan yihi ama uu kasoo horjeedaa dhaqankaa waynu bedelaynaa waa inuu qofku muwaadinkii uu dareemo inay madaxdiisii nahay inaynu mas-uuliyiintiisii nahay in muwaadinku dareemo inaan shaksi ahaan iyo abtirsiim ahaan iyo xisbi ahaan iyo siyaasad ahaan midna aan lagu dee takooreynin waxaan kaga tegayaa uun mustaqbalka somaliland wuxuu ku xidhan yahay hoggaaminteena iyo sidaynu u hoggaamino sidaynu isugu xidhnaano sidaynu u shaqayno taasaana keeni kartaa isbeddelka aynu dadka
ballan qaadnay inuu hirgalo waan aaminsanahay isku duubnideeni oo maadaama idinkuna dee matalaysaan xukuumaddii dhexe iyo madaxweynihiiba inaynu aadna isugu xidhnaano aynu wadajir u shaqayno si aynu u helno somaliland midaysan barwaaqo ah oo nabad buuxdeeda haysata adduunka guud ahaan somaliland maanta wuu danaynaya laakiin waxay ku xidhan tahay kolba sidaynu u shaqayno inaynu xoojino waxyaabaha lagu danaynaya waxa kow ka ah nabadda iyo xasilooni siyaasadeed waxaa ka mid ah doorashooyinka joogtada aynu qabanayno waxaa ka mid ah inaynu nabad doonayno markii adduunku wuu soo dhiiranayaa maalgashigu wuu inoo imanayaa dowladuhu way nagu soo xidhmayaan waxaan idinku bishaareynayna safaradii aanu tagnay ugu dambeysay in adduunku waanu idin xaqiijinaynaa in adduunku somaliland maanta wada danaynayo dana badanna aynu isdhaafsan karno marka inaynu soo jiidano dadka shaqadeennay ku xidhan tahay sidaynu uga shaqayno deegaanadeenna sidaynu u nabadayno siyaasadda dowladdu waa nabad waxaa kaloo dee dowladda waajibku ah inay qarankeeda iyadana diyaar u tahay inay difaacdo